حسن waa mahadsan tartan ku soo jooga xalay saqdhexe baaciidankii daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland oo muddo 8 bilood 9 bilood magaalada dusheeda fadhiyay oo dagaalkii 2 Maarso ku qabsaday balaxa oo ciidamadii dib kaga baxay ahaa waxay noo sheegeen in la soo weeraray ciidamada ay u kala garan waayeen inay shaab yihiin iyo kuwa xamar laga keeno magaalada ku jiray oo isbahaysanaya marka dagaalka halkaas uu ka qarxay iska caabin kadibna ciidamadii magaalada isla galeen marka halkaas ayay wax ka socdaan marka inta aan ognay ilaa hadda waa inta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan miyaa dagaalka qaaday mise waa lagu soo qaaday saraakiisha ciidamada hogaaminaysa waxay noo sheegeen ayaga la soo weeraray saddexda maalmood ugu dambeysayna ay garanayeen bin difaac ay ku jireen magaaladana dusheeda ay fadhiyeen marka dagaal laba dhinac ah ayaa noola qorsheeyay yiraahdeen dhinaca shabaabka iyo dhinaca ciidankii xamar laga keenay oo jabhada ku tilmaamay oo nabadgelyada Soomaaliya ay meesha ku soo gurtay marka dagaalka waa lagu soo qaaday xabadii halka ka bilaabatayna waxay sababtay in magaalada gudaheeda ay ciidamadu isla galaan halkaas ay hadda wax socdaan wixii kale oo dheeraad ah waan heli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo laakiin inta dhacday waa inta maxaa qasaare ah oo ka dhashay dagaalka oo aad nala wadaagi kartaa maya wali hadii meel dagaal ka dhacay aad ogtahay magaalo weyn oo shacab ku nool yahay oo ciidamo isla soo galeen xali xabad bilaabatay ilaa haddana magaalada ay xabada ka socoto marka khasaare waa dhacaya waa khasaare aan loo baahnayn sababteedana hadii kulay mas'uuliyadeeda ay qaadi doonto cidda ka soo shaqeysay fil Soomaaliya laakiin ma waa dib baan ka soo sheegi doonaa wali waqtigaan Soomaaliya helin aan isku weydiino nidaam maxaa dhintay maxaa nool wararka qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada Jubbaland ay fuuleen dabaqyo ku yaala magaalada isla markaana lagu hareereysan yahay arrinta ma noo xaqiijin kartaa horta xasano hadduu dagaal dhaco waxa dagaalamayna ay nasiib darro tahay oo mas'uuliyad xumo ay ka shaqeysay dawladda Soomaaliya ay tahay oo meesha ka dhacday ama dabaq ha la fuulo ama dhul ha la joogo dagaal baa dhacay ciidanka waa la weeraray ayagana ciidanka weeraray way iska soo caabiyeen kadibna magaalada la soo galay magaaladana xabada way ka socotaa daafaheeda laakiin waxay sheegeen ciidanka Jubbaland inay maalihii xarumaha degmada iyo istiishamada ayaga hadda joogaan oo ku sugan yihiin wax dhibaato ahna ayna qabin hadda magaalada yaa gacanta ku haya saraakiisha saaka roorta hadda ama 10 daqiiqo ka hor soo wacday waxay sheegeen sida Jaraal Abbas oo kale inuu station ka joogo iyo xarunta degmada laakiin magaalada weyn weeyo daafaheeda oo dhan ay xabadaha wali ka dhacayaan dawladda Soomaaliya oo dagaalkan ka hadashay waxa ay ku tilmaantay dadka weerarka ku qaaday magaalada Beled Xaawo in ay yihiin jabhad ay soo hubaysay dawladda Kenya marka arinta maxaad kala socotaa wallahi wax la yaab leh weeye ciidankaas waa ciidankii 11 sano gada difaaceeda ku jiray dawladihii ku meel gaarka xilligii madaxweyne Cabdullaahi laga soo bilaabo dawladii Sheekh Shariif oo ana xildhibaan ahaan dhisnay xariiq ciidamada ka soo baxay dawladda caalamiga naga kaalmeeyeen ciidan qarana marka hadii jabhada ma ku indhaha loo soo duubay oo shabaabka la aruuriyo nabadgelyada xamar laga soo raray baa mas'uul ciidankii dalka xoreeyay oo Soomaaliya u dhimanayay marka taasooyiga la weydiin doona Ilaahay bayna ka furteen kuwaas oo hadlay hadda dagaalkii ma socdaa mise waa istaagay ما يقول حبضة ويدعيان بل يقول دافعها مجالة حبضة ويدعيان ولي ما واحد فاينل حمد الجنا مجالة مد الجنا ولي وحي واصعة. إسقارسينتو إنه جوانتا هاي ورارك الشيء يا محاكة جرا. ما جوانو هرمود وشقين إسا نهضب وضوء كرتادو بلا حوا نجنا نهضب إلى حريريين واحد غارسين هم غير مشره.